gareeno oo wadaagno insha allah. waayahay akhyaaray soo dhowaada. mowduucani waa mowduuc aad u muhiim ah oo ah trading plan. waa maxay trading plan? Trading plan waa qorshe ganacsi. waa qorshe ganacsi. waayahay akhyaaray cafwan waxaan idhi trading plan waa qorshe ganacsi. qof walba oo trader ah oo guulaystana waxaa khasaba inuu leeyahay qorshe ganacsi. marka laga yimaado inuu qofku koroskii barto oo istiraatiijiyadihii iyo wixii oo dhan uu fahmo fundamental ahaan uu suuqa u fahmo, waxaa khasaba aqoontiisa inuu qorshe iyo balaan uu waxa weeye uu ku daro. Soomaalida waxay tiraahdaa fulay qorshe leh ama doqon qorshe leh wuxuu biit garayaa ama ka adkaada ama uu jabiyaa qof maskax badan oo aan wax qorshe aan lahayn. marka balaaninku iyo qorshuhu waa wax aad u muhiima. nolosheenoo dhanna waa wada balaan ama waa qorshe. marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa waqtiga ma rabo inaan badiyo maadaama uu recordingna yahay, ardaduna hadda insha allahu tacaala ay qaadan doonto su-aalahooda, inaynu qodobo aad u muhiima oo aan isleeyahay waa kuwa ugu muhiimsan inaynu taataabano insha allahu tacaala. ugu horreyn su-aal muhiima jirta, waa maxay trading plan? Trading waa ganacsi, balanna waa qorshe. af soomaali waxay ku noqonaysaa qorshe ganacsi. waxaa laan ku yiri basic trading plan, qorshe ganacsi oo bilow ah. includes wuxuu ka kooban yahay markaynu suuqa forex joogno ama waxaa soo hosgelaya entry. entriyada aad suuqa ka gasho, meelaha entry ka gasho waxay soo hosgelayaan trading plan. okay, sidoo kale maxaa soo hosgeli doona exit rules, meelaha aad suuqa kaga baxdana oo aad ka noqoto aad tirahdo tradekaas halkaas hadduu gaadho waan ka baxayaa, iyada laftigeeduna waa trading plan bay soo hosgelaysa. as well as sidoo kale waxaa soo hosgelaya trading planka risky management, maamulka khatarta ama maaraynta khatarta. iyada laftigeedu waxay soo hosgelaysaa trading plan, oo micnaheedu waxa weeye qofku hadduu risky management leeyahay ama uu khatarta manage gareyn karo oo maamuli karo, qorshe ganacsi buu leeyahay. sidoo kale trading planka waxaa soo hosgelaya position sizing rules, xisaabinta positionada aad gelayso iyo siiskooda. tusaale, ma trade baa iska gelaysaa mise ka hor tradeka intaadan gelin baa sii xisaabsanaysaa SL-kaaga iyo TB-gaaga iyo waxaad ka rabto iyo risk reward ratio dhan. marka trading planka intaas oo dhan baa soo hosgelaysa. si kooban haddaynu raahno, trading plan waa qorshe ganacsi oo la rabo qofka traderka ahi inuu qorto oo dejisto ka hor intaanu suuqii gelin ama tradingka aanu bilaabin. that's trading plan. waayahay, waxaan eegi doonaa marka rules trading planka ama qorshaha ganacsi xeerarkiisa iyo waxyaabaha uu leeyahay marka aynu forex joogno. qodobka koowaad ama ruleka koowaad wuxuu noqonayaa ee trader walba laga rabo waa inuu leeyahay trading goals and objectives, ahdaaf iyo ujeedooyin ganacsi oo suuqan ugu jiro waa inay jirtaa. waayahay, trading goals, ahdaaftaas ganacsiga are divided into waxaa loo qaybinaya laba qaybood. qofka traderka waa inuu leeyahay short term goals, ahdaaf iyo goolal iyo ujeedooyin gaagaaban oo waqti yar ku raadinayo. sidoo kale waa inay jirtaa oo uu leeyahay long term goals, ahdaaf iyo goolal uu muddo dheer raadinayo. tusaale, 5 sano soo socota waxaan rabaa inaan halkaa gaadho oo kale waa inuu yidhaahdo. waayahay, short term trading goals, ahdaafta yaryar ee waqtiga kooban describes waxay qeexaan oo caddeeyaan what you want, waxa aad doonayso to achieve inaad gaadho in a short period of time, muddo aad u yar. for example, tusaale ahaan the next weeks or months, usbuucyadan soo socda iyo bilahan soo socda xagee baa rabtaa in tradingkaaga uu gaadho, akoonkaaga intee baa rabtaa inaad ku darto, ma 3%, ma 4%, mise 5%. waayahay, long term trading goalskuna waa maxay? describes wuxuu qeexayaa what you want, waxa aad doonayso to achieve inaad gaadho in a long time, waqti dheer, such as sida years, sanadaha soo socdo. tusaale waxaa leedahay 2 sano ama 3 sano soo socda waxaan rabaa halkaa iyo halkaas inaan gaadho. halka short term tradingku ay tahay isbuucan waxaan rabaa tusaale ahaan akoonkayga inaan 1% ku daro, 2%, 3% iyo wixii la mid ah. waayo, rulka koowaad waa kaas. waa inaad leedahay objectives iyo goals cad. suuqan markaad soo geliso waa inaad
goals cad aan la soo gashay waa inaad tirahdaa waxaan rabaa dhaqaale ahaan inaan isbedelo sanadaha soo socda inta dhaqaalahayga aan kordhiyo bilahan iyo isbuucyadan inta aan kordhiyo waayahay qodob kale wuxuu noqon doonaa market analysis sidoo kale goaliskan iyaga laftigoodu lacag keliya ma noqon karaan goaliska waxaa noqon karaa xataa aqoon dhisidaada tusaale inaad tiraahdo labadan usbuuc oo soo socda waxaan focuska ugu badan saaraya risk managementiga saddexda bilood ama sanadkan oo dhanna waxaan xoogga iyo focuska ugu badan saari doonaa fundamental analysiska lacag keliya ma ahaya xataa waxaa soo hosgelaya waxyaabaha kaa saacidaya inaad guulaysato sida waxbarashada iyo waxyaabihii kale oo la midka ah waayahay qodob kalaad wuxuu noqon doonaa oo la rabo traderku inuu ruleskiisa ku darsado market analysis waa inaad suuqii analyze ku samaysaa intaadan gelin ka hor tusaale waxaa dhacda badanaa dadka loosgareeya suuqan ama ku failgarooba inay suuqii soo galaan oo trade iska galaan iyagoo aan falanqayn wax analyze iyagoo aan samayn market analyzeka faaqidaada ama analyzeka suuqu laba midkood bay noqon kartaa waa fundamental analysis suuqan waa inaad war ahaan u analyze garaysaa analyze waxaa laga wadaa inaad u faaqidaa wax iska weydiisa maadaama bayris iyo lacago wadamo ay ku trade garaynayno maxaa khasaba in fundamental ahaan aynu u analyze garayno suuqaas waayahay focus on wuxuu xooga saaraa key economic indicators indicatorada ama waxyaabaha tilmaama dhaqaalaha that influence dhaqaalahaas ama waxyaabaha soo saameeya forex market suuqan la yirahdo forex such as waxaa ka mid ah inaad la socoto aad ogtahay growth domestic growth rates koritaanka GDP-ga wadan walba waa inaad la socoto tusaale USD GDP-deedu markii ugu dambeeyay muxuu soo baxay 2.8 good buu ahaa okay sidoo kale inflationka sicir bararka oo kale waa inaad la socoto employment data xogta shaqaalaha waa inaad la socotaa sida unemployment rate-ka iyo waxyaabaha la midka and central bank policies siyaasadaha bangiyada dhexe ee wadan walbana waa inaad update aad la socoto waayahay stay updated sidoo kale waa inaad la socotaa geopolitical events geopolitical juqraafi siyaasadeedka ama wadamada iyo siyaasadahooda waa inaad la socoto that could impact kaas oo saameyn kara currency values lacagahaas qiimahooda geopolitical waxaa laga wadaa wadamadan iyo siyaasadda dhaqaalaha tusaale hadda waxaan aragnaa haddii iiraan ama falastiin wuxuunun yar uu ka dhex dhaco ama israel ay falastiin weerarto in uu suuqa saameeyo ruushku hadduu ukraine weeraro inuu suuqa saameeyo marka geopoliticalkuna waa muhiim waxaas dhan maxay soo hosgelayaan fundamental analysis analyska labaad oo la rabo inaad suuqa ku samayso wuxuu noqonayaa technical analysis waa inaad si farsamo ahaan suuqii u faaqidaa labada waxaa beysa oo muhiimsan fundamental analysis technical analysis maxaa soo hosgelaya waa inaad doorataa technical tools qalabka isticmaali lahayd ee aad rabto inaad ku analyze garayso chartiska waxaa ka mid ah trend lineska ka mid ah moving averageska support and resistance levelska RSI-ga iyo Fibonacci marka qof walba mid buu isticmaalaa inaga kan focus ugu badan saarno waa maxay waa support and resistance levels waaye ruleka saddexaad wuxuu noqonayaa currency pair selection inaad doorato lacagaha bayrka ee ku tirar garaynayso waa qodob aad iyo aad u muhiim currency pair selectionka eeg mid walba wuxuu u baahan yahay faahfaahin aad u badan inaan kasii bixino currency pair selection is okay okay sorry waayahay currency pair selection wuxuu noqonayaa lacagaha ku tirar garaynaysa inaad doorato factors badan baa soo hosgelaya say u dooranaysa tusaale waa inaad sessionska aad tirar garayso aa eegtaa for example NY session ama New York baad tirar garaysaa soo maha waa inaad tiraahdaa waxaan rabaa laba lacagood oo midna New York session ay furan tahay midna ay xiran tahay tusaale waxaa ka mid ah GBP GBY oo kale boonku wuu furan yahay oo waa London close weli lama gaadhin GBY-dan waxay soo xidhantaa barqaday soo xidhantaa marka London open ay tahay sidoo kale USD GBY oo USD lacagta dollarka NY-da furan GBY-dan soo xidhantaa marka lacago noocaas oo kale waa inaad doorataa oo currency pair selection waa qodob aad u muhiim ah beer iska tirar garaysa aniga khaalid ahaan waxaan ku tirar garayaa GBP GBY Euro USD kolliga marmar ii soo raaca laakiinse beeriska ugu badan oo aan ku tirar garayo waa labadaas saddexdii sano ugu dambeeyey waayo qodobka afraad oo la rabo inaad ruleskaaga ku darsato waxa weye trading strategy istaraatiijiyadda ama weyga aad u tirar garaynayso best action miya
ICT miya, Elliott wave miya, market structure miya, supply and demand miya, whatever waxay doontaa ahaato, trading strategy-gu waa muhiim. Trading strategy waxyaaba badan baa soo hosgelaya. Exitka iyo entry-ga waxaa keenaya istaraatiijiyadda iyo qorshaha iyo qaabka u trade garaysaa keenaya. Qodob shanaad wuxuu noqon doonaa oo la rabo inaad balaankaaga ku darsato hadhowna aad sii qodobayso waa risk management, maaraynta khatarta. waxaa soo hosgelaya includes waxaa soo hosgelaya risk per trade, trade walba intee ku risk garaynaysa. sidoo kale waxaa soo hosgelaya riski reward ratio, khatarta iyo rewardka abaalmarinta aad rabto raashiyadooda intee noqonaya. tusaale haddaad tiraahdo 1-to-1 baan rabaa, yacni halna waa riski garaynayaa, halna waxaan u rabaa reward abaalmarin ahaan oo wax la qaadan karo. kahor haddaad tiraahdo laakiinse waxaan riski garaynayaa 3, rewardkeyguna waa 1, 3 to hal, waa very shame wey. qodobka lixaad wuxuu noqon doonaa trading routine. waa inaad leedahay routine ama waxyaabo maalinle ah oo aad tradingkaagu u qaabaysan yahay, such as sida 2 trades per day, maalin walba inaad 2 trade qaadato. Trading only 2 pairs, waa inaad ku trade garaysaa 2 pair keliya. Using the session, waa inaad session iyo xilli gooniyana aad doorataa. waxay soo hosgelayaan trading routineska soo hosgelayaan. inaad 1% risk garayso, reward ratio-haagana 1-to-2 aad ka dhigato, maxay soo hosgelaysaa risk management. inaad exitka iyo entry-yada iska saxdo, maxay soo hosgelaysaa trading strategy. inaad pairs munaasib aad doorato, maxuu soo hosgelayaa currency pair selection. waxyaabahaas oo dhani waa waxyaabaha loo baahan yahay inaynu ku sameyno qorshaheena ganacsi ku daran. waayahay qodobka ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa okay 1 minute aan check gareeyo. ogaa baytarigayga wuxuu yahay very low, iga sii dhacaya, xarigeena ma haysto. waxaan rabaa inaan insha Allah tacaala soo gabagabeeyo idinka raalli ah. qodobka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa psychological consideration. waa inaad tixgelisaa waxyaabaha psychologiga ah, such as sida emotion control and discipline. waa inaad emotionkaagana controli kartaa, discipline waa inaad leedahay. marka 7 qodob baan waxa weeye diyaariyey insha Allah tacaala. waa trading plan iyo rules si fiican qofkii u dabaqa uu ku guuleysan doono. marka